assalaamu calaykum. ila dhegayso qisadan cajiibka badan. waagii hore waxaa jiray nin dadka tuuladiisa caano ka iibin jiray. ninkaasi waxa uu deganaa waddanka Masar, gaar ahaan tuulo ka mid ah waddankaasi Masar. ninkaasi maalin weliba waxa uu iibin jiray caanaha, waxa uuna u geyn jiray dadka macaamiishiisa ah. ninkaasi tuulada uu deganaa dadka caanaha ka iibiya waxay u badnaayeen in ay caanaha biyo ku daraan, balse ninkaasi caanaha biyo kuma uusan dari jirin, waxa uuna iibin jiray caano saafi ah. ninkaasi waxaa ku xirnaa macaamiil fara badan. macaamiishaasina waxay aad u jeclaayeen ninkaasi in ay ka iibsadaan caano. sanooyin badan ayuu caano saafi ah ka iibinayay macaamiishiisa, balse ninkii caanaha iibinayay waxa uu arkay dad badan oo caano iibinaya, dadkaasi oo caanaha biyo ku daraya oo helaya faa'iido labalaab ah. ninkii caanaha iibin jiray oo caanaha saafida iibin jiray waxa uu go'aansaday maalinkaasi in uu caanaha biyo ku daro. ninkii waxa uu diyaariyay caano kale si uu u geeyo suuqa oo uga iibiyo macaamiishiisa, balse caanihii in la'eg biyo ah ayuu ku daray, waa uuna isku qasay, waxa uuna u soo qaaday suuqii, waxa uuna u geeyey macaamiishiisa. macaamiishaasi oo ku xirnayd sanooyin fara badan. macaamiishii caanihii markii uu u geeyey, qof weliba oo macaamiishiisa ka mid ah waa uu ka shakiyey, balse kalsooni fara badan oo ay ku qabeen ninkaasi caanaha iibinaya iyo daacadnimada ay ku ogaayeen, waxa ay is yidhaahdeen caanahani biyo laguma soo darin, ee si kale ayay wax uu qaldan yihiin ayay is yidhaahdeen dadkii macaamiishiisa ahaa. qaylana kama soo yeerin. ninkiina lacago fara badan ayuu urursaday, waxa uuna ku soo shubtay kiis weyn. ninkii caanaha iibinayay oo aad u farxsan ayaa ku soo laabtay gurigiisa, balse guriga inta uusan soo gaarin waxa uu arkay geed aad u weyn. geedkaasi oo lahaa har aad u weyn, geedkaasina waxa uu ku agyaalay webi. ninkii odayga ahaa oo caanaha iibinayay waxa uu is yidhi, bal geedkaana harkiisa iskaga naso, maanta waa aad soo shaqaysatay, lacago fara badan ayaad sidataa, shandadaadiina waa ay ku buuxdaa, iska naso kadibna guriga aad ayuu is yidhi ninkii caanaha iibinayay. geedkii harkiisa ayuu fadhiistay, balse ninkii in yar ayuu gam'ay. geedka weynaa korkiisa waxaa saarnaa daanyeer. daanyeerkii waxa uu isku dayey ninkani caanaha iibinayay shandadda uu wato inuu ka dafo. shandadaasi lacag ayaa ka buuxday, balse daanyeerka waxa uu u malaynayay wax la cunayo in ay ku jiraan. daanyeerkii si tartiib ah ayuu geedka uga soo degay, waxa uuna ka dafay shandaddii. ninkii caanaha iibinayay oo gam'ayey indhaha ayuu soo kala qaaday, durba waxa uu arkay shandaddiisii oo lacagta uga buuxday oo daanyeer la cararaya oo la sii fuulaya geedka korkiisa. balse ninkii caanaha iibinayay aad ayuu u carooday, waxa uuna iirsaday daanyeerkii. geedkii ayuu la fuulay, balse daanyeerkii shandaddii markii uu arkayba in ay raashin ku jirin ay lacag ku jirto, shandaddii waa uu tuuray. daanyeerkii lacagtii waa uu tuuray. qayb ka mid ah waxa ay ku dhacday webiga, qayb ka mid ahna bannaanka ayay ku daadatay. ninkii caana iibiyaha ahaa si daran ayuu u carooday, niyadda ayuuna ka jabay. lacagtii bannaanka ku daadatay ayuu u cararay si dabeelaha webiga ugaga daadanin. ninkii odayga ahaa oo caanaha iibinayay lacagtii ayuu ururiyey, waxa uuna ku shubay shandaddii daanyeerka uu soo tuurayey, balse lacagtii kale waxa ay ku dhacday webiga, waa ayna qoymatay. balse ninkii odayga ahaa caanaha iibinayay sidaa uguma harin, waxa uu dhexgelay webigii, lacagtiina waa uu ka soo saaray, bannaanka ayuu yimid. ninkii odayga ahaa oo caanaha iibinayay si daran ayuu niyadda uga jabay. halkii maalin uu faa'iidada badan helay, daanyeerkii ayaa khasaariyey oo lacagtii biyaha ugu riday. balse ninkii odayga ahaa waxa uu xisaabiyey lacagtii u badbaaday, tan kalena waa uu fiiriyey, si daran ayay u qoymatay, mana ahayn lacag la isticmaali karo, meesha ayuuna ku tuuray. balse tii u badbaaday ayuu xisaabiyey, waxa ay la ekaatay lacagtii uu maalin weliba caanaha saafida ah ku soo iibin jiray, balse lacagta biyaha uu ku tuuray daanyeerka waxay ahayd lacagtii biyaha uu u soo dareeyay caanaha. ninkii waa uu qoslay, waxa uu yidhi ninkii odayga ahaa hadal taariikhda masaarida galay, ilaa hadda loo soo qaato mahmah ahaan. ninkii odayga ahaa ayaa yidhi isaga oo qoslaya, qorahdaani caan ka noqotay, ilaa haatan ay adeegsadaan dadka masaarida. ninkii odayga ahaa waxa uu yidhi lacagta caanaha ayaa caano lagu shubaa, lacagta biyuhuna waa biyo ayuu yidhi ninkii odayga ahaa isaga oo qoslaya. maxaa yeelay lacagtii caanaha saafida ahayd oo maalin walba soo iibin jiray
lacagtii waa ay u badbaaday gubiga kuma dhicin bannaanka ayay ku daadatay lacagtii xaaraanta ahayd oo caanaha biyaha ugu dareeyey idilkeedii gubiga ayaa qaaday waxayna noqotay lacag waxba taraynin meeshii ayuuna ku tuuray xigmaddaasi ninkaasi masaarida ah sheegay xigmad la adeegsado ilaa dhowr qarni ilaa wakhtigan waa ay adeegsadaan dadka masaarida ninkii odayga ahaa oo caanaha iibinayey maalinkaasi ayaa ugu dambaysay inuu caanaha biyo ku daro maxaa yeelay ninkaasi odayga ahaa waxa uu arkay daliil in aysan u fiicneen waxaasi uu ku kacay sanooyin badan ayuu iibinayay caano saafi ah ma uusan ku dari jirin wax biyo ah balse halkii maalin uu biyaha ku daray waxa uu la kulmay caqabad ninkii odayga ahaa waxa uu cabbirtay lacagtaani xaaraanta ah in uu ilaahay ka badbaadiyey mar dambena uusan u noqonin oo caanaha biyo uusan ku darin ayuu go'aansaday ninkii odayga ahaa oo caanaha iibinayey mar weliba waxaa wanaagsan in aad iska ilaalisid xaaraantuna ma wanaagsana ninkii odayga ahaa daanyeerkii madaxiisa ayuu isaga dhaafay caanihii uu biyaha ku darayey maalinkaasi kadibna waxa uu go'aansaday in uusan caanaha biyo ku darin dulucda iyo xigmadda qisadaani ku jirta waa haddaad ganacsato tahay mar weliba waxa aad iska ilaalisaa khiyaanaduna ma wanaagsana qof weliba oo ganacsato ah ganacsigiisa khiyaano hadduu ku daro mar ay ahaataba mar waa uu khasaarayaa haddii uusan ku khasaarin dunidaani korkeeda maalinta aakhiro ayuusan badbaadaynin waxa uuna la kulmi doonaa waxa uu ka shalleeyo weligaada waxaad iska dhowrtaa xaaraanta iyo khiyaanada wax weliba aad iibinayso si saxan oo saafi ah u iibso maxaa yeelay ninkaani caanaha iibinayey maalin weliba caano saafi ah ayuu iibinayey weligiisuna caqabad lama uusan kulmin balse maalinkii uu khiyaanada sameeyey waxa uu la kulmay caqabad ninkii odayga ahaa oo caanaha iibinayeyna waxa uu dareemay fal xun in uu ku kacay falkaasina maalintaasi ayaa ugu dambaysay waa uuna ka soo hanuuniyey qisadii yarayd inta haynoo joogto walaalaha ku xihan janalka Cabdixakiin Birow fiidiyowgan haddaad ka hesheen waxa aan idinka codsanaynaa janalka inaad noo like garaysaan aad share garaysaan subscribe-na aad dhahdaan mahadsanidin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh